xeerlaaliyaha guud ee qaranka Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud oo ay weheliyaan gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir garyaqaan Saciid Cali iyo xogayaha joogtada ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Faysal Aadan Xasan ayaa kormeer ku tagay xabsiga iyo dhismaha maxkamadaha ay ku yaala X Control Afgooye. dhismahan oo loogu talagalay inay ku shaqeeyaan maxkamadaha qaadaya dambiyada culculus ayaa waxaa mas'uuliyiinta ay mid u kormeereen goobaha loogu talagalay in lagu qaado dacwadaha, goobaha loogu talagalay inay fariistaan dadka ka qaybgalaya dacwadaha, xafiisyo, goobaha garsoorayaasha ay ku nastaan waxna ku akhristaan iyo goobo kale oo muhiim ah. dhismahan ayaa waxaa dhistay hay'adda IDLO oo ah hay'ad garsoorka iyo cadaaladda kala shaqeysa garabsiinta shaqooyinkooda. xeerlaaliyaha guud ee qaranka Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa qiimeyn ku sameeyay dhammaan goobaha la diyaariyay inay waafaqeen nidaamkii loogu talagalay iyo shaqooyinka muhiimka ah howlaha garsoorka. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.